إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عادني الله منها وإياكم. أما بعد ولا غير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا طاب أوقاتكم إلهي وقتكين هيدين بركايو ودرس كلا إيو دروستي كساب سنة تاريخ الأنبياء. تاريخ الأنبياء ودرس جيس دي تمنات إذن كإلهي أن وحين كجر قصة النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. waxaynu shalay ka soo hadalnay nebiyullaahi ibraahim iyo wixii kala qabsaday daaqigii fircoon ee masar joogay ee damaaciyey xaaskiisii quruxda badnayd ee saara ee muuminadda ahayd ee ka mid ahayd dumarka sidiiqiinta ah inuu faraxumeeyo, iyo ilaahay siduu u galay subxaana wa tacaala, inuu ilaahay hoojiyey oo weliba uu soo siiyey haajara, oo nebiyullaahi ibraahimna calayhi salaatu wasalaam uu khaliil iyo falastiin kusoo laabtay isagoo xoolo badan wata, oo ilaahay subxaana wa tacaala dacwadiisii iyo diintiisiina uu xifdiyey. wacalaykum assalaam waraxmatullah. naciima yaasiin, nimco yaasiin, soo dhawaada walaalayaal dhammaantiinba. qof kastoo soo galaa ha sheer gareeyo si walaaluhu maaratay darsiga u ogaadaan insha allah. weliba maan sii iclaamin, saasaan ka xumahay. mararka aynu fursad hello inaynu maaratay darsiga dhaqaajinaabaa fiican, waayo waqtiga maaratay goortaynu dhiban doono ma ogin, inaan ka faa'iidaysano wallahi alxamdu tabaaraka wa tacaala. intaan ka faa'iidaysan karro oo wacajiltu ilayka maaratay rabbi litarda. nabiyullaahi muusa ayaa wuxuu ilaahay ku yihi maxaa ku soo dedejiyo, wuxuu yihi ilaahu maaratay yacnihii qoomkaagii kaa soo dedejiyo, wuxuu yihi ilaahu waxaan usoo degdegay inaad iga raali noqoto. ilaahay daacadiisa in loo degdego waa shay qaali ah, waayo dadku maanta adduunyay wada degdegayaan. waxay u degdegayaan shar, waxay u degdegayaan bani aadamka in laysku diro, waxay u degdegayaan adduunka in la fasahaadiyo, adduunka inaan islaaxino oo kelimadda xaqa ahi intaynu awoodi karno nafteenna iyo nafaha dadkaba gaadhsiino waa shay walaalayaal daruuriya. baaraka allah fiikum. soo dhawaada marka insha allah. dhammaantiin qof kastoo soo galaa maaratay markiiba ha sheergareeyo. baaraka allah fiikum, jazakum allahu khayr. waxaynu marka maanta qisada nabiyullahi ibraahim maraynaa aakhirkii qisooyinkiisii. nabiyullahi ismaaciil dabiix baa inoo hadhi doona insha allah, laakiin maanta waxaan ka sheekeynaynaa dikru muhaajir ibraahim biibnihi ismaaciil wa ummihi haajara ilaa jibaali lfaaraan wahiya ardu maka wa binaa'ihi beyt lcatiiq. nabiyullaahi ibraahim markii saara ay hinaastay ay tiri ma arki karo haajara, ilaahay subxaana wa tacaala nabiyullahi ibraahim waxaa amar lagu siiyey inuu xaaskiisii haajara iyo ilmihiisii ismaaciilay nuujinaysay inuu ka kaxeeyo dhulka muqadaska ah ee baytulmaqdis iyo xagga oo qabadsiiyo maka. meeshaasoo ilaahay uu maaratay ku amray inuu ka dhis doono beytka kacbada loo yaqaano, oo ah yacni guriga ilaahay ka ugu qiimaha badan leh fil ard. kacbadana nabiyullahi ibraahim baa nooleeyey iyadoo waadi ah, laakiin ilaahay goortuu ballaangareeyey oo uu yacnihii ugu talagalay inay noqoto kacbada waxay ahayd yowmu khalaqa asamaawaati wal ard. maalintii ilaahay samaawaadka iyo dhulka abuuray ayaa kacbada ilaahay halkaa u jaangooyey in guri ay noqoto, oo ilaahay subxaana wa tacaala guri lagu caabudo oo baytulmacmuurka la siman, oo khalqiga dhulka joogo oo dhami ay isugu yimaadaan. waana meeshaas hal mar iyada oo bannaan adduunka ma jirto. rasuulkuna wuxuu yidhi haddaad tihiin yacnihii muslimiintii iyo quraysh iyo dadkii kacbada deganaayo, ha u diidina kacbadan iyada ah qof yacnii cimraysanaya ama ku tukanaya ama dawaafaya leylan wa nahaara. lidaalika iyadu ma laha awqaadda yacnihii makruuha salaadu ay tahay ama dawaafku makruuha uu yahay ma leh. 24 saacadood madaafku wuu furan yahay, dadku way dawaafayaan habeen maalin subax ayaan yacni gudcur ciid maalin kasta. mar salaad jamaaca lagu tukanayo oo weliba salaad jamaacada intaa loo xidho, iyadoo salaaddii jamaacada lagu jiray ad arkaysaa qaar iyagu hore jamaacadoodi iska tukaday oo iska dawaafaya ayaad arkaysaa maarta. loo diidi maayo. beytkaa dhismihiisa iyo qisaduu ku yimi iyo nabiyullaahi ibraahim ilay shareecadeenna arkaanta islaamka oo dhan waad arki doontaa. nabiyullaahi ibraahim oo imaamulmuwaxidiin ah, hadday tawxiid ka tahay,
hadday tahay maxaa la yidhahdaa kacbada dhismaheedii, hadday tahay cibaadaadka ku saabsan dhammaan ciidaheenna, hadday tahay xoolaha la gowracayo, hadday tahay dawaafka sacyiga safiya marwa, hadday kacbadayna dawaafaynayo dhismaheeda tahay, hadday yacni waxaad arki doontaa nabiyullaahi ibraahim shareecada aynu maanta haysanno waa aabbihii iyo aasaasihii ay ka soo jeeday oo dhan, waa raadkii iyo legasigii iyo wixii uu inooga tegay aabaheen ibraahim imaamu lmuwaxidiin calayhi salaatu wasalaam. imaamu bukhaari wuxuu soo saaray min xadiis ibni cabaas qaala wuxuu ihi awala matakhada maaratay nisaa almantiqa, dumarka kuwii ugu horreeyey ee marada dheer ee dhulka xaabaysa xidha min qabl waxay ahayd umu ismaaciil calayhi salaatu wasalaam, umu ismaaciil sala allahu aleyh wasalam iyana radia allahu canha hajara. itakhadat mantiqan waxay samaysatay dhexir bay samaysatay iyo maro ay dhexda ku xidhato oo dhulka jiidaysa sida googaradoo kale, macnaha waxaa loo jeedaa googarad dheer, googaradda hoosta laga xidhay dumarku xidhaan mantiqa oo dheer oo dulucleg markii ugu horreysay ay xidhaan umu ismaaciil baa samaysatay. maxaa yeelay maaratay litucfiya atharaha calaa saara, markii ibraahim uu kaxaynayay haajara jihaday u kaxaynayay saanay asaare oo ku hinaastay oo iyada addoon berigi hore ahaan jirtay aanay u ogaanin, ayay waxay samaystay dulucaa dheer ee dhulka xaabaya si raadkeeda ay u tirtirto oonay saari u ogaanin. jihadee buu ibraahim u kaxeeyey haajara, jihadee buu kaxeeyey. uma jaa maaratay biha ibraahimu wa biibniha ismaaciil wahiya turdicu. ibraahim calayhi salaatu wasalaam wuxuu la yimi saara iyo ilmaheedii jaqaayay ee nabiyullahi ismaaciil wahiya turdicu iyadoo nuujinaysa. xataa wuxuu la tegey ilaa maxaan ku dhaha magaalada khaliil la yidhahda falastiin ku taalla ilaa maka, oo xataa wadaca cinda albeyt ilaahay kacbada halka laga dhisi doono ayuu keenay. waa ko cinda dawxa, meesha dooxa uu ku yaallo, dawxadu maaratay waa meel waadi ah oo biyuhu maraan, fowqa zamzam halka zamsamku ceelku ku yaalla meesha ka yar sarraysa, fii acla almasjid ee masaajidku halku ku yaalla hadda ah. walaysa bimaka yowmaidin axad. markaa uu nabiyullaahi ismaaciil oo naaska nuugaya hooyadii ibraahim uu keenay halkaasna meesha waa meel cidla ah, qof bini aadana oo ku nooli ma jirin. waa kow ibnu cabaasna xadiiska rasuulku ka warinaya, xadiisku waa marfuuc. waayahay walaysa bihaa ma, meeshu biyo ma leh, haba yaraatee wax biyaa ma leh. fa wadaca hunaalika ibraahim xaaskiisii iyo ilmihiisii yaraaye ay nuugayay halkaasuu dhigay. wawadaca cindahubaa jiraaban fiihi tamr, sibraar ama harag uu xoogaa maxaan ku dhahdaa timir ah nabiyullahi ibraahim uu ku sidana wuu ag dhigay, oo yani maaratay jiraabkii ay siteen oo waxoogaa timir maaratay ay ku hadheen na wuu dhigay. waxaa kaloo ag dhigay wasiqaan fiihi ma, waxoogaa iyana sibraar ama haraggaa laga sameeya, yani weelka haragga laga sameeyo oo ay biyo ku jiraanna wuu dhigay. uma qafa ibraahimu muntaliqa, ibraahim uu ka shubay, wuu socday, qadaadka ayuu sii jeediyey. waa ko fatatabicatu maaratay waxaa raacday umu ismaaciil, ilay meelii joogto ma leh, waa meel cidlo ah, wax yeedha iyo wax yuuqa iyo wax sanqadha oo meesha jooga ma leh. nabiyullahi ismaaciil hooyadii way ka daba tagtay ibraahim calayhi salaatu wasalaam. fa qaala waxay ku tidhi yaa ibraahimi ayna tadhab, xagaad qabanaysaa? wa tatrukanaa bi hada alwaadi aladi laysa bihi maaratay aniisun walaa shay, xaggee meeshan cidlada ah oo wax la weheshado iyo cidina aanay joogin aad noogaga tegaysaa? fa qaalat lahu dalika miraaran, dhowr jeer bay ku tidhi. ibraahimna uma joojin, wuu iska sii socdaa. wa jacala laa yaltafitu ilayha, ma soo eegayo. fa qaalat waxay tidhi lahu allahu amaraka bi haada, ma ilaahay baa tan ku amray? allahu akbar. qaala nacam buu ihi ibraahim, ilaahay baa amray buu ihi. qaalad waxay tidhi idan laa yudayicuna, na dayici maayo mar haddii ilaahay ku amray. bal addoontaa ka waran, shalay boqor gaala baa lahaa, islaam may ahayn, ilaahay sadaqo wuxuu maaratay gacanteeda soo geliyay saara iyo ibraahim bay gacanteeda ku islaamtay. ibraahim baa guursaday calayhi salaatu wasalaam. allahu akbar. bal u fiirso, maanta waa muuminad, ilaahay bay ku qanacsantay. radiina billaahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxammadin rasuula sala allahu alay wasalam. maanta waxay leedahay maadaama ilaahay uu ibraahimow arrintaa ku amray, waxaan ogay ilaahayna dayaci maayo.
ثم رجعت ويسكلابت فانطلق إبراهيم وكتغي حتى إذا كان عند ثانية إلا ماشى بورتا يرى كالجاحة وقاري حيث لا يرونه مال آني سارك آني هاجر كأركين مركو مرايو استقبل وجه البيت كعبدي هلكي كعبده وكردس دونه مستقبلك وهاجر كتغي عدلة أهيد أي وجهك سو قابلة ثم دعا بهؤلاء الدعوات إلهي ببري سبحانه وتعالى بلو فرصة ولا ليال dadka saalixiinta ilaahay say ugu qanacsan yihiin waa meel cidla ah yacni xaaskiisii libaax baa dili kara bahal baa cuni kara cunto ma haystaan waynu arki doonaa biyo ma haystaan intuba way ka dhammaan doontaa wejiguu ilaahay soo qaabilay waadigiibuu soo qaabilay meeshii uu reerkiisa geeyey ducuu ilaahay ku ducaystay subxaana wa tacaala ducadaas ilaa qiyaam saaca waa la akhriyaya gacmuhu sare u qaada yacni sunnada nebiga ka mid tahay in markii la ducaysanaya gacmaha sare loo qaado ibraahim gacmuhu sare u qaada muxuu yidhi ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سأسبولي ربنا أي يا ربنا ربك يقولي إني أنيقو أسكنت وحندك من ذريتي durriyadaydii ehelkeygii ila ilmahaasu leeyihi nabillahi ibraahim ilmihikoodu dhalay muxuu ahaa ismaaciil calayhi salaatu wasalaam iyo xaaskiisii xaaskii kale saarana khaliil buu kaga yimiye falastiin marka durriyadaydii waadigan baan keenay buu yidhi oo kayra dii zarcin wax la cuno iyo wax la beerto midna aan lahayn oo cinda beytika almuxaram gurigaaga xurmada leh ee la dhisi doono agtiisa yaalla ربنا أي يا ربنا ليقيموا الصلاة إله سي صلاة أوغان أو أي كو عابدان فاجعل أفئدة من الناس وحد يشاء قلوب بشر كي أدونك تشوكته تهوي إليهم إني بيت كان شعلاته قوبتن إني شعلاته سن الله يغتي ماده إلهي حكيم سنة دعاء بلو فرصة أولا دعاء وحي كب العباد ilaahay buu u cawday oo wuxuu ugu cawday in isaga dartii ehelkiisii iyo ubadkiisa kii uu haystayba inuu meel cidlaa ilaahay dartii u keenay ilaahay waxbaa la weydiistaa waa loo cawdaa shaqada aad ilaahay dartii u qabatayna ilaahay waxbaa lagu weydiistaa oo ilaahay waa lagu xodxotaa oo ilaahay waa lagu baryaa oo ilaahay waa laysugu beenbihiyaa ilaahay wuu jecel yahay addoomihiisu waxa ay dartii u qabteena ikhlaas ah inay ilaahay u sheegtaan isaga waa boqorka wax loo sheegtay ugu qiimaha badan u fiirsa dacwada iyo ducada macaankeeda ilaahay wuxuu yihi durriyadaydii intii aan haystay agtaadaan keenay iyo beydkaaga allahu akbar waa kow maxaynu kale ka qaadanaynaa masalada labaad wuxuu xasuusiyey in meesha uu keenay ay tahay biwaadin gayra dii zarcin waadi yacnihi abaar ah oo aan waxba oolin hadda balfirso ilaahay abaarta iyo gugu waa isugu mid mar hadduu ku aqbalayo mar haddaad muumin tahay saalix tahay ilaahay ku xidhan tahay ilaahay gugiyo abaarta waa isugu mid ilaahay buu marka weydiisanaya waadigani waa kayra dii zarcin zarac iyo waxba ma leh yaa wax la weydiistaa ilaahay markaana xigmadda kale xeesha dheerli waxa weeye wixii dhibaato ay kaa gaadhiya dhibaatada ku haysta yaa loola noqda ilaahay arsaaqdii iyo culayska haystay nabillahi ibraahim yuu la laabtay ilaahay buu la laabtay subxaanahu wa tacaala waa kow qodobka saddexaad wuxuu sheegay meeshu inay tahay meeshuu ilahay ugu jeclaa cinda beytika almuxaram ilaahu meeshan ubadkaygii keenay ee abaartiina waa gurigaagii xurmada lahaa ee waxa adduunka jooga oo dhimi ay kugu caabudayeen waxaa ku beegan baytulmacmuur ayaa kacbada xagga sare kaga beegan oo mala samada ilaahay maarata waxaa ku caabuda malaa'igta waxaa la yidhi maalin walba waxaa jamaaca ku tukata oo malaa'iga 70,000 malak 70,000 oo malaa'igta ilaahay muqarrabiinta oo laa yacuuduun kuma soo laabtaan hadda waa maalin kasta jamaacada dadka baytulmacmuur malaa'igta ku ogtaa waxaa la yidhi waa 70,000 markay markaa ku ogaan kuwaas ma soo laabanayaan 70,000 oo kalea ku maarata ayaa jamaacadii ku ogaya mundu khalaqa ilaahay uu samaawaadka abuuray ilaa maarta hadda balfirso adduunka ilaahay u kharaabiyo marka
kacbaduna waxaa ku tukanaya basharka oo dhan wixii adduunka ilaahay ku abuuray baytulmacmuur oo kacbada ka sarreeyana malaa'igta ku tukata waa ko rabbana qodobka afraad ee uu ilaahay weydiistay waxa weeyaan in ehelkiisa wax la siiyo oo kacbada la dhiso oo meeshan laysugu yimaado xigmaddu waa maxay xigmaddii afraad buu sheego rabbanaa liyuqiimu salaa ehelkaygu say salaada u ogaan lianna adduunkan ilaahay muxuu u dhisay kacbada maxaa loo dhisayaa ehelka maxaa meesha loo keenay ibraahim muxuu meesha u yimi liyuqiimu salaa inay salaada ogaan inay ilaahay caabudaan ilahay baa qur-aanka wuxuu leeyahy wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun leanna wax kastoynu samaynayno cuntada waxaynuu cunayna inaynu ilaahay caabudno dharka waxaynuu xidhannahay inaynu ilaahay caabudno waxaynu ubad u yeelanaynaa inaynu ilaahay caabudno waxaynu qaraabo u yeelanaynaa inaynu ilaahay caabudno waxaynu shaqo tegaynaa inaynu ilaahay caabudno waa inaynu fahanaa xarakaadkeenna iyo sakaraadkeenna wax kastaynu samaynayno inay waafaqdo wuxuu ilaahay rasuulkiisa doonayey markaasaynu noqonaynaa dad ilaahay caabudaya sida nabiyullahi ibraahim lidaalika wuxuu leeyahy halkan ubadkaygii aan keenay iyo durriyad waxaan haystay ee aan zarac lahayn ee beydkaagii muxaramka iyo dadkan dhibaataysan ilaahu soo arsaaq si ay adiga kuu caabudaan maaha say adiga kuu caasiyaan hadda bal fiirso liyuqiimu salaa say salaada u ogaan lidaalika buu ilahay wuxuu yihi fajcal afidata min annaas quluubta bani aadamka ilah waxaad ka yeeshaa tahwii ilayhim mid iyaga u imanaysa ganacsi waxuu ka dhashaa meel dad joogo ayaa dunya taalla walaalayaal odayga arkay soomaalidu maanta nin weliba tuuladiisii intuu aaday ayuu dadkii ku leynayaa haddii adduunku aanu isu iman oo dadku maaragtay aanay quluubta bini aadamku magaalooyinka iyo dhulka ilaahay lagu caabudayo basharku aanu isu iman waxa weeyaan xadaaradi ma dhalato iimaan ma dhasho tacliini ma dhalasho horumarini ma timaado soomad arag innaga dadkeenii soomaalida ahaa waxaynu kasoo horjeednaa dacwadii ambiyada nabiyullahi ibraahim wuxuu doonayaa maki inay noqoto meesha adduunkao dham isugu yimaado maxaa yeelay allahu akbar nabadgelyadii baa taalla arsaaqdii baa taalla horumarkii baa yaalla jaamacaadkii baa yaalla waxtarkii baa yaalla lidaalika basharka adduunku masaladaa way fahamsan yihin cid kastoo dadka kala kaxaysta oo kala qoqobtaa waxay baabiinaysa oo fasaahadinaysaa arlada waa sababta dadku donald trump ugu mudaharaadayaan oo dadkii u kala qaybinaya diimo iyo midabo dalkii la wada dhistay ee ugu dhaqaalaha weynaa ee ugu ilbaxsanaa ee ugu tacliinta badnaa ee basharka adduunka oo dhan 7 kambani ugu waaweyn maraykan dad ajnabi yahoon aan maraykan u dhalan baa abuuray oo iskale google yaale yahoo yaale apple maaragtay yaale dhammaantood yacni kambaniyada maanta maraykan aynu naqaano waxaa iskale dad aan ku dhalan maraykan iyagu hadday ku dhasheenna aabayaashood aanay ku dhalan oo yimi ayaa leh lidaalika soo ma aragtid yani adduunku wuxuu u shaqeeyaa ilaahay baa wuxuu leeyahay uu ka baryayaa nabiyullahi ibraahim u yeel maarata ijcal maarata ilah waxaad yeeshaa yani fajcal afidata annaas quluubta dadka waxaad yeeshaa min maaratay tahwi ilayhim inay ehelkayga meeshii aan keenay si ay diintooda iyo dhaqaale iyo ummadda hogaamisa adduunka u noqdaan ilahu ummadda u keen warzuqhum ilaahu arsaaq risqu meel dad joogaa buu yimaadaa dadka ayaa wata yacnihii xoogga iyo maxaa la yidhahdaa maaratay tacmiirka taas way dadkeena soomaalida ee maanta adduunka u qaxaya dhulka qof kasta oo ka tagaa kusoo laaban maayo hadduu kusoo laabtana baawarkiisii iyo xooggiisii iyo shaqadiisii dalal kalu geenaya taas way adduunka waa la isdhacaya oo meesha maaratay dadku ay ka haajiraan dhaqaali baa ka haajiraya tacliintii baa ka haajiraysa maskaxdii baa ka haajiraysa meesha basharka u haajirana waxaa u haajiraya dhaqaalihii iyo wax walba ayaa u haajiraya iyo maskaxii adduunka o dhan ayaa u haajiraya warzuqum ilahu rasqi buuhi maarata min athamaraat lacallahum yashkuruun si ay kugu mahadnaqaan nabiyullahi ibraahim ducadaas buu duceeyey ehelkiisii allahu akbar wuxuu yidhi ibnu cabaas oo xadiiska inoo warinaya wa jacalat umu ismaaciil markuu ibraahim sidaa kaga tegey haajara waxay guda gashay inay ismaaciil turdicu ismaaciil inay nuujiso wa tashrabu min dalika almaa biyihii yaraay uga tegey ayay ka cabaysay xataa idaa nafada maa fi siqaa ilaa wixii yaraayay ku jiray weelka ama haragga ama sibraarka kulba sida u yaqaano ay dhammaadeen cadashat way haraaday wa cadasha ibnuha ilmaheedina wuu haraaday allahu akbar wa jacalad waxay guda gashay
tanduru ilayhi yaltawi ilay mar hadday biyii weyday oo cunto weyday naaskana wuu gurayaa. naaska caanaha waxaa ka keena afka waxay ka cuntay caloosha ay geliso. naas baa layidhi, naas hooye baa layidhi waa calool afkeed. afka iyo caloosha waxay gelisay baa naaska ilma ay ka siin kartaa. mar haddii iyadii ay gaajootay, biyo weyday, ilmihiina gaajoodoo biyo waayey, waxay eegtay ilmiheediioo gadgadoomaya gaajo daraaddeed. baluu fiirsada walaalayaal, waa awlaaddii ambiyada sida loo imtixaamayo. aw qaala yatalabadu, maaratay kolba naaskii intuu yani maaratay ku gadoomo waxba ka waayaya. fandalaqat, way iskaga tagtay karaahiyatan an tandura ilayh, yani ilmahan xanuunka iyo gaajada haya iyo gadgadoonka haya ayay maaratay u adkeysan weyday, way iskaga tagtay. fa wajada safa, meeshii kacbada waxay eegtay meel buur yar oo u dhow oo safa la yidhaahdo, inay tahay aqraba fi l ard, meesha ugu dhow ee bal wax intay fuusho ka eegi karto. yeliha iyada soo xigta. faqaamat maaratay faqaamat calayh, buurtii yarayd bay isku taagtay. uma istaqbalad waadigii bay hareerihiisii eegtay. tanduru hal taraa axadan, bal inay cid bini aadan oosan ku neeflaha ay aragto. falam tara axadan, axadna way arki weyday. allahu akbar. fahabadat min asafa, safay haddana ka degtay intay adkeysan weyday, xataa balaqat badna alwaadi, waadiga yaree biyaha ayay maxaan ku dhahdaa carartay oy martay. rafaca darafa dirciha, diriceedii maaratay dhulka xaabayey ayay xayn ka qabsatay. dumarka waa kuwa xayn ka qabsada oo yani saray usoo qaaday si ay u socoto aanay isugu dabrin oo aanay u dhicin. uma sacat, way carartay sacya alinsaani almajhuud, qof dhibaataysan oo balaayo ka cararaya orodkiisoo kale ayay carartay. xataa jaawasat ilwaadi, waadigii yaraa ayay ka gudubtay, yani waadigii yaraa labada buurood dhexdooda, safiya marwa ayay ka gudubtay. waa kow. uma aatat ilmarwa, buurta yaree kale safe kasoo horjeeday marwa ayay timi. faqaamat calayha, haddana buurtii bay isku taagtay. wa nadarat hal taraa axadan, haddana waxay eegtay bal inay qof arki karto. falam tara axadan, cidna way arki weyday. fafacala dalika 7 maraat, 7 jeer bay sidaa samaysay. safa, ina safa walmarwa, ina safa walmarwa min shacaa'ir illah bala yidhi. faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi maaratay an yatawafa bihima. orodkeedii 7 jeer baa ilaahay cibaado inagaga dhigay maanta in safiya marwa xajka rugni min arkaani salaa inuu yahay, rugni min arkaani xaj inuu yahay baan ujeedaa. haddaba lu fiirso. qaala ibn cabaas wuxuu yihi, qaala nabiyu sala allahu alay slam, nabigii baa nooga sheekanayo wuxuu yihi, fadalika sacyu naasi baynahumaa, waa sacyiga maanta a cararaysaan safa iyo marwa. halka ilmaheeda la dhigayna wuxuu noqon doonaa seeska kacbada ee ilmihii yaraa uu maaratay yani maaratay u dhow, seeska kacbada ayuu u dhowye. halka ilmuhu markaa jiifaa ceelka zamzamka ayaa kasoo boodi doona, waa arki doontaan. allahu akbar. wuxuu yidhi falamaa ashrafat cala almarwa, markay marwo haddana yani ay wax ka fiirisay 7 jeer kadib baa samicad waxay maqashay sawtan cod. fa qaalat, markay codkii maqashay way biliifi weyday, macnaa way rumaysan weyday. markaasaa nafteedii waxay ku tidhi zih, aamus. ayadii baa isla hadlaysa. weligaa meel cidlaama lugaysood ka baqayso oo intaad istiri waxbaad maqashay mays aamusisay adigu. allahu akbar. dadka reebaadiyaha kusoo koray baa yaqaana. allahu akbar. waxay tiri zih, iyadii baa wada isla hadashay. aamu bay tiri. turiidu nafsahaa, nafteedii bay la hadlaysaa. suma tasamacat, way ismaqashisay. oo fa samacad haddana way maqashay aydan, codkii bay maqashay. fa qaalad waxay tiri haa qad asmacta bay tiri in kaana cindaka qawth, in kaana cindaka qawaath, yacnihi qad maaratay waa lagu maqashiiyey. in kaana cindaka, hadduu agtaada yahay maaratay qawaathun gargaar, yani sanqadhi ayay la hadlaysaa. fa idaa hiya, waaba iyadii oo ku sugan bilmalak cinda mawdici zamzam. waxaabay aragtay malakul jibriil oo halka zamsamku ilaahay uu ka faydi doono, ceelka ka qodi doono, jibriil oo joogo oo baxatha bicaqibihi ciribtiisa yani ku baadhay, aw qaala bijanaaxihi, ama garabkiisa ku baadhay, xataa dahara almaa, intuu dig ku siiyey biyihii ay kasoo boodeen, bug biyo kasoo yidhaahdeen. allahu akbar. fa jacalad, intay soo carartay baa waxay guda gashay taxuuduhu, inay biyihii ila waxaa ku jirta biyihii markiiba yay kaa gurin, wixii soo maray bay garanaysaa. biyihii bay waxay samaysay inay hareeraha yani kasoo moosto, moos bay dhigtay, ciid bay soo dhigtay. wa taquulu biyadiha haakada, biyihii bay maaratay istiri soo xeero iyay kaa dhammaane. wa jacalat taqrifu min almaai fi siqaa'iha,
sibraarkii biyihii ay ka dhammaadeen bay markiiba dabacday inay biyihii ku dhurto radia allahu canha wahuwa yafuuru bacda maa taqrifu iyagoo biyihii soo boodaya sida il yani maaratay soo boodaya qaala ibnu cabaas wuxuu yihi qaala nabiyu sala allah alay slam nebigu markuu noo sheekeynaya rasuulku wuxuu yihi yarxamu allahu umma ismaaciil ilahay ha u naxariisto low tarakat zamzama hadday ceelkan iyo ishan zamsamka ah ay iska dayn lahayd aw qaala low lam taqrifina almaa biyahaba aanay taqriif samayn oo aanay biyaha qaadateen lakaanat zamzaman caynan maciina waxay noqon lahayd il sida webiga u boodaysa bay noqon lahayd buu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam laakiin waxoogaa lexejecladaa gashay bay meeshii yaraatay haddaba lo fiirso waa wax la yaab leh qofku markuu ilaahay arsaaqda ilaahay sidaa loo daayaa caaisha radi allahu canha xadiis waxaa ka sugan waxay tiri markuu rasuulku geeriyooday wax cuntaa igama tegin waxoogaa shaciir ah oo meel raf ah rafka waxa la meelaha yani maratay khaanadaha guriga saaran buu iiga tegay kadib waan iska cuni jiray bay tiri wax yar waana qiyaastii dhowr suus waan iska karsan jiray waan karsan jiray markaan bila cunayey ayaa waxaan ku idhi what's wrong with this maxaan ku dhahdaa maxaa ka khaldan waxaan yaray meesha saaran maba dhammaanaye markaasa waxaan isi balmaad miisid horta waan miisa bay tiri maalintaan miisa way iga dhamaaday bay tiri haddaan dayn lahaa bay tiri allahu akbar weligeyba waan cuni lahaa lidaalika bani aadamku yani maaratay had iyo jeer bakhaylnimo ayaa qalbigeena ku jirta haddaad aragto ilaahay baraka ku siiyey cuntadiioo kordhaysa lacagtiioo kordhaysa dukaankaagiioo iska soo kordhaya waxba ha xisaabinin u kaadi sadaqadu bixi u kaadi hadda bal fiirso war lacagtu xaggay ka timaada hadhihin ilaahay baa ku siiyey hadda bal fiirso dadka saalixiinta ilaahay wuu quudiya waxaan arki doonaa nabiyullaahi maxaan ku dhahdaa zakariya iyo maaratay oo maryama kulamaa dakhala calayha zakariya markuu zakariya soo galo wajada cindahaa risqa maryama wuxuu arkayay risiq iyo khudrabaad iyo abal iyo bahalkan loo yaqaano canab ama maaratay tufaaxi waxyaaba aan meesha ay degan tahayba oolin ayuu ku arki jiray markaasa wuxuu odhan jiray yaa maryama anaa laki haada xaggaad ka hesha markaasaa waxay odhan jirtay huwa min cindi illaah ilaahay baa isiiyey in allaha yarsuqu man yashaa bikayri xisaab ilahay cidduu doono xisaab la-aan buu ku arsaaqa saalixiintu saasay ahaayeen nabiyullaahi ibraahim xaaskiisii iyo saara waxaan leeyahay maaratay haajare iyo wiilkiisii ilaahay malag buu usoo diray biyihii ceelkii uga soo boodsiiya waa kow wuxuu yidhi marka allahu akbar fa sharibad way cabtay wa ardacad waladahaa ilmihii bay caanii siisay fa qaala laha almalaku malaggii baa la hadlay malaggii marka qofku iska soo dhigay laa takhaafi buu yihi maxaa cabsan buu yihi adayca waxaa tahay dayco iyo cid laga mas-uul yahay ha baqan buu yihi fa inahaa hunaa baytullah halkan waxa ah buu ihi ilaahay beytkiisii yabnihi hada alqulaamu wiilkan yare imaka aad naaska nuujinayso baa kacbadan dhisi doona wa abuuhu ya abihi wa ina allaha laa yadiicu maaratay ahlahu ilaahayna dadka wehelkee muuminiinta saalixiinta ilaahay ma dayaco allahu akbar wa kaana albeytu murtafican beytku arlada wuu ka yar sarreeyey dhulka meel ardi karaabiya meel burco ah oo sarraysa ayuu ahayd burcada waxa la dhulka sarreeya burco waxa burco loogu bixiyey waa meel taaga markaa meel taaga ayuu kacbadu ku taalay meesha loogu talagalay ta'tiihi suyuulu daadadka ayaa iman jirayoo fa ta'khudhu can yamiini can shimaalihi halka kacbada laga dhisay daadku ama dhinaca midigta ama dhinaca bidixda ayuu ka mari jiray allahu akbar ayuu ka mari jiray marka fa kaanat kadalika saas bayd xataa marad bihim rufaqa min jurham niman jurham oo qabaa'il carbeeda oo dhulka saxaraa ku nool oo hayaanahoo guuraya ayaa soo maray wa ahlu beyti maaratay min jurhum muqbiliina min dariiqi ilkadaa iyagoo dariiq ilkadaa maraya ayay meesha iska soo mareen fa nasaluu fi asfal maaratay maka meel u dhow oo ka hoosaysay degeen oo fa ra-ow daa'iran caa'ifa waxay arkeen shimbiraha nooca biyaha cabba ee meelaha biyo joogta ah oo qura laga helo ayay arkeen oo ku weehanaya halkaa kacbada laga dhisi doono fa qaalu waxay idhahdeen ina hada daa'ir shimbirkaasi layaduuru cala almaa biyuhu ayuu ku wareegayaa wala cahdinaa bi hada alwaadi wamaa fiihi maa waadigana weligiiba wax biyo ah kumaynaan ogeyn ila waa dadkii meesha degi jiray fa arsaluu jaryan aw jaryayni yacni faras ama laba faras bay usoo direen dad soconaya fa idaa hum bilmaa biyi bay arkeen fa rajacuu way warrameen oo fa akhbaruuhum bilmaa biyi bay warrameen oo fa aqbaluu qabaa'ilkii iyo odayaashii baa u yimi qaala wa ummu ismaaciil cinda almaa ummu ismaaciilu biyi la joogtaa fa qaal waxay idhahdeen ata'daniina lanaa an nanzila cindaka ilay dadku biyay wada raadinayaan
ma noo idmaysaa inaanu halkan biyahaale kula degno qaalad waxay tihi nacam walaakin laa xaqa lakum fi lmaa biyahan anaa iskale oo ilaahay siiyey wax xuquuq oo ku leediin anigu waxaan idinka siiyey mooyaane shaqo kuba liitin qaaluu nacam bay yidhahdeen biyahaagan way arkaan in qofkani qof amran oo saalixada biyahan iyo siday ku yimaadeen iyo wixii o dhan way arkaan waa dad caqli leh maaha dad sideena mooryaan ah oo maaratay maanta doonaya wixii inay xoog ku kala qaadaan oo aakhire isu dirayo o isdilaayo walciyaadu billah waa dad caqli leh waayahay bay yidhahdeen qaal waxay dhahdeen nacam qaala cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi qaala nabiy sal slam haa fa alfaa dalika umu maarata ismaaciil wahiya tuxibu lunsa taasi waxay yacnihii siisay yani xasilooni iyo weheshi maxaa yeelay umu ismaaciil waxay doonaysay inay cid weheshato dad hesho ila bini aadamku wehelka ayuu ku nool yahay fa nazaluu way degeen wa arsaluu ilaa ahlihim reerahoodii bay u cidireen fa nazaluu macahum halkii bay soo degeen xataa idaa kaana bihaa ahlu abyaati minhum guryaha meeshii waxaa ka aasaasantay meel la deegaana wa shaba alqulaamu wiilkii yaraa ee ismaaciilla waa xoogeystay wa tacallama alcarabiya ilaa carab isagu muhayne luqadii carabta ayuu wuxuu ka bartay nimankii reer jurhum nebi ibraahim ilmahanu dhalay ismaaciil iyo nebiyullaahi maxamed iyo cadnaaniyiin baa la ydhahdaa waxa la carabulmustacraba carabtii carabowday iyagoo may ahayn carab may ahayne ciraaqiyiin bay ahaayeen baabil bay kasoo jeedeen ibraahim iyo qoomkiiso inigii kasoo sheekaynay inuu ciraaq ka tegey oo xaraan tegey oo shaam tegey oo khaliil tegey oo wiilkiisii imaka uu keenay kacbada marka luqadii carabidaabuu bartay wiilkii maaratay ismaaciil calayhi salaatu wasalaam luqadii carabiga ayuu bartay oo maaratay wuu weynaaday wa maaratay wa anfusahum maaratay wuxuu noqday marka watacalama alcabriya minhum wa anfusahum yani wuxuu noqday kuwa ugu qaalisan ila waa nebi baana dhalay waa acjabahu waa cajib geliyey xiina shaba markuu dhalinyarada noqday falamaa adraka markuu yacnihii qaan gaadhay zawajuuhu imra'atan minhum wiil gabar bay u guuriyeen reer jurhuma wa maatat umu ismaaciil hooyadii haajarana waa dhimatay fa jaa ibraahimu bacda maa tasawaja ismaaciilu ibraahim baa soo noqday markii ismaaciil uu guursaday yudaalicu tarikatahu dadkii uu ka tegay isagoo soo fiirinaya falam yajid ismaaciil muu helin fa sa'ala imra'atahu canhu waxaa la yidhi wuxuu dadkiibu weydiiyey gabadhii ismaaciil oo faqaala waxay tihi yacnihii markuu yimi kharaja yabtaqi lanaa isagoo arsaaq buu noo doonay huma sa'alahaa can cayshihim wa hay-atihim sidee tihin buu yihi arsaaqdiinu waa sidee ismaaciil ka waran marka iyadu ma garanaysa inuu aabihii yahay faqaalad waxay tihi naxnu bisharin shar baa noo dhan nacuudu billah walaalayaal carabkeenna hagaajiya bal u fiirso gabadhii qofkii ismaaciil xaasku qabay waxay tihi shar baa noo dhan naxnu fii dayqin wa shidda cidhiidhi iyo dhibaataana haysata wa shakad ilayhi way u cabatay qaala wuxuu ihi fa idaa jaaa zawjuka markuu ninkaaga yimaado faqari calayhi salaam salaam ku akri wa quulii lahu waxaad ku tidhaahdaa gayir catabatahu maaratay bibaabihi albaabkiisa catabadda waxa la dhaha albaabka marka lasoo gelaayo catabadda maaratay guriga haddaad daad ka baqayso inuu kaa soo galo jaranjarada yar ee loo sameeyo ee qoriga ah ee guriga lagu gudbay ee albaabkay soo haysa labadiisa fardadood baa la ydhahdaa marka wuxuu hi catabadda gurigaaga albaabkaaga bedel falamaa jaa ismaaciilu kaanahu aanasa shay ille waa nebi waa quwan barakaysan yacnihii sufuushii iyo urtii iyo waxbuu dareemay aabihii khusaysa faqala wuxu hi hal jaakum min axad ciidma kuu timi faqaala waxay tihi nacam haa waa ii yimid jaa-anaa shaykhun kada wa kada oday noocaas oo weyn baa noo yimid fa sa'alanaa canka wii kaa weydiiyey fa akhbartuhu waan u warramay wa sa'alanii kayfa cayshunaa wuxuu weydiiyey maxaa ku nooshiin fa akhbartu ana maaratay annaa fii jahdin wa shidda in dhibaato iyo dayq iyo fuqaro aan nahay qaala wuxuu ihi hal awsaaka bishay wax ma kuu dardaarmay qaalad waxay tihi nacam haa amaranii wuxuu amray an aqra'a calayka asalaam inaan salaamta kugu soo gaadhsiiyan ku dhahdo asalaamu calaykum wa yaquulu laka wuxuu ku catabata bibaabika albaabkaaga catabadiisa bedel qaala wuxuu ihi daaka abi kaasi aabbaha ibraahim buu ahaa calayhi salaatu wasalaam waqad amaranii wixii amray allahu akbar waxaanuu ii amray anu faariqaka inaan ku furo lugta fur buu yidhi inaan ku furo faalxiqii behelika reerkiinii aad buu ku yidhi allahu akbar oo fa dallaqaha wuu dalqad buu siiyey wa tasawaja minhum ukhraa gabar kaloo haddana guursaday allahu akbar wa labitha canhum ibraahimu maa shaa allah haddana intii uu maqnaa buu haddana arladii xaggaa ku maqnaa uma ataahum bacd wuu u yimi haddana ismaaciil wuu soo noqday falam yajidhu mar labaadkaana ma helin ismaaciil oo maqan buu yimi fa dakhala calaa imra'atihi xaaskiisii labaad buu usoo galay
fasa'alahaa canhu ismaaciil buu weydiiyey faqaala waxay tidhi kharaja yabtaqii lana isagoo wax noo doonay buu baxay qaala kayfa antum sideed tihiin ismaaciil marka nin ugaadhsadaa buu habaa layidhi oo ugaadh iyo xool wuxuu maaratay hilib buu keeni jiray marka qaala kayfa antum sidee baa tihiin wa sa'ala can cayshihim buu weydiiyey wa hay-atihim iyo siday u nool yihiin faqaala waxay tidhi naxnu bikhayrin wasica khayr iyo nicma noo dhan bay tiri walaalayaal soo gabdhoo maqli maysaan raggiina waxay idin siiyaan walaalayaal maaratay walaalayaal ku qada walaalayaal maaratay ilaahay baa arsaaqaya haddii arsaaqda lagugu yareeyo maaha ilaahay inuu wax ku waayo waa lagu imtixaamaya haddii lagu badiyana maaha inaad dadka ka wacantahay waa lagugu imtixaamaya labadaba waa imtixaan hadda bal u fiirso marka qofku waxaa la doonaya inuu ilaahay fahmo waxay ku tiri nicmaanu ku sugannahay faqaala wuxuu maaratay naxnu bikhayrin wasica raxmad iyo maaratay khayr iyo arsaaq waasica noo sugan wa athnad cala allah ilaahay bay ammaantay faqaala wuxuu yihi maa طacaamukum cuntadiinu waa maxay qaala waxay tihi allaxmu hilibaa baanu cunnaa qaala famaa sharaabukum maxaa cabtaan qaala waxay tihi alma biyaanu cabnaa qof biyo hilib haysta maxaa ka wacan allahu akbar qaala wuxuu yihi allahuma baarik lahum fi laxmi walmaa ilaahu ehelkeyga hilibkaa iyo biyahay cunaan ilaahu u barakee qaala nabiy sal slam nabigu wuxuu yihi walam yakun lahum yowmaidin xabun maalintaa wax la beerto oo xubuub ah mayna haysan walow kaana lahum maaratay xabun la dacaa maaratay lahum fiihim markaa hadday xubuub jiri lahayd iyo wax la beerta wuu ugu ducayn lahaa laakiin markaa ma jirin buu yihi qaala fahumaa laa yakhlu calayhima axadun bikayri maka ilaa lam yuwaafiqah buu yihi maaratay wuxuu yidhi qaala wuxuu yihi fahumaa laa yakhlu calayhima axadun axad khaali ka noqon maayo labadaas bikayri maka ilaa maaratay lam yuwaafaqaa maaratay lama waafajiyo qaala fa idaa jaaa zawjuka buuhi rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi markuu ninkaagii yimaado faqra'i calayhi salaam salaam ku akri waa kow wa muriihi waxaad amartaa ood ku tidhaahdaa yahbutu catabata baabihi albaabkiisa catabadiisa xakabka hore iridda ee albaabkiisa labada qorigaa xatabadda la dhaaye maaratay albaabka maxaan ku dha labadiisa fardadood isku xidhaa xifdi dhe oo ilaasho falamaa jaa ismaaciil markuu yimi qaala wuxu hal ataakum min axad waxbuu dareemay cidima kuu timi qaala waxay tiri nacam aataanaa shaykhun xasanu hay-a aataanaa shaykhun waxaa noo yimi sheekh oo yani hay-addiisu qurux badan tahay nuuraya hadda bal firso wa asnad calayhi way ammaantay fasa'alanii canka wii kaa weydiiyey fa akhbartuhu waan u warramay fasa'alanii kayfa cayshuna wuxuu weydiiyey ceyshkeenna iyo nolosheennu say tahay fa akhbartu waxaan u warramay ana bikhayr inaanu khayr ku sugannahay qaala fa awsaa maaratay bishay shay ma kuu sheegay dardaarana qaala waxay tihi nacam huwa yaqra'u calayka asalaam salaam buu kuu soo diraayey kow wa yaamuruka waxuu ku amraayey an tuhbita maaratay catabata baabik catabadda albaabkaaga xakabkaaga halka iridda laga soo galo gurigaaga catabadda ku taalla iyo qoriga maxaan ku dhahdaa kuu yaalla ee daadka maaratay kaa celinaya ee labada fardadood labada maxaan ku dhaha qoryaha albaabkaaga isu haya inaad ilaashato qaala wuxu uhi daaka abi kaasi aabbahay buu ahaa wa anta alcataba catabadda la sheegay leeyahy guriga ku ilaalina adigu adigoo xaaskayga ah wuxuu leeyahy xaaskaaga ku fara adayg waa gabarh fiicane amaranii an amsaka inaan ku haysto ayuu aabbahay amray allahu akbar maxaa yeelay tanina ilaahay iyo diintiisay ku fiican tahay tii horena diintay ku xumay ilaahay bay ka sheegatay nebi ismaaciil bay ka sheegatay arsaaqdii bay ka sheegatay lidalika baa rasuulku wuxuu leeyahay tunkaxul maaratay imraa biarbac afar baa dumarka loo guursadaa mid waa maxay lixasabihaa qabiilkeeda wa lijimaalihaa quruxdeeda wa limaalihaa maalkeeda wa lidiinihaa diinteeda rasuulku wuxu uhi fadfur bidaati diin gabadha diinta leh ee ubadkeeda hadhow tarbiyayn doonta ee haddaad gaajooto kugu sabri doonta ee haddaad dheregto maalka aan baabiin doonin ee ahlu khayrkaa taa ku dadaala baa layidhi hadday markaa qurux yeelato ama reerkoodu fiican yahay waa optionka labaad weeye laakiin optionka koowaad waa maxay waa diinta weeye naagaan diin lahayni walaalayaal macna male qoys ma dhiso nimaan diin lahaynina qoys ma dhiso haddaba fiirso laakiin still waxaa la doonayaa in laysu dulqaato oo diinta laysgaadhsiiyo oo dacwada maaratay yani lagu dadaalo oo aan laysku degdegin ayaa la doonayaa ila qof waliba nuqsaan waa leeyahay oo macnaheedu maaha dadka in la wada helayo wax wada sidi murdhukha la heli maayo lidaalika uma labitha canhu maa shaa haddana intii ilaahay doonayo ayuu nabillahi ibraahim ka maqnaa kow marka wuu yimi haddana uma jaa baa dalika ibraahim baa yimi wa ismaaciilu yabri nablan lahu taxta dawxa qariiba min zamzam mar saddexaadkaas ismaaciiloo leebabkii uu hilibka maaratay kusoo ugaarhsan lahaa ayuu ibraahim kusoo beegmay falamaa ra'aahu markuu ismaaciil arkay
qaama ilayhi aabihii buu kacay oo fa sanacaa waxay sameeyeen kamaa yasnacu lwaalidu biwaladi waladku wuxuu waalidkii ku sameeyey yani waa la ismucaanaqeeyey walwaladu maaratay bilwaalidi waalidku wuxuu waladka ku sameeyey wuxuu waladku waalidku sameeyey bay isku sameeyeen uma qaala wuxuu yihi ismaaciil ina allaha amarani biamrin ilaahay amar buu amray fasnac maa amaraka bihi maaratay marka wuxuu yihi qaala wuxuu yihi ismaaciil wuxuu ku yidhi fasnac samee maa amaraka bihi rabuka wuxuu ku amray qaala wuxu uhi wa tuciinanii miyaad igu kaalmaynaysaa qaala maratay wa uciinuka waan kugu kalmaynaya wuxuu ilahay ku amray qaala wuxuu yihi fa inii amaranii wuxuu amray ana ibnii haahunaa anabnii inaan ka dhiso haahunaa halkan beytan kacbo guri wa ashaara ilaa maaratay wuxuu tilmaamay akimatan murtafica calaa maa xawlaha meeshii meel yaroo dheer oo maaratay sarraysa ayuu tilmaamay waa kow qaala wuxuu yihi fa cinda dalika rafacaha alqawaacida min albeyt qawaaciddii beytkii seeskii gurigay dhiseen fa jacala ismaaciilu ya'ti bilxijaara ismaaciil dhagxaantuu keenayo o ibraahimu yabni ibraahimna uu dhisaayo wastaadkiibuu ahaa ida irtafaca ama fuundigiibuu ahaa markay ida irtafaca albinaa jaa'a maaratay bi hada alxajar fa wadacahu lahu markii uu marka dheeraaday ayaa wuxuu u keenay dhagaxan oo fa wadacahu lahu fa qaama calayhi wahuwa yabni ibraahim baa dhagaxii isku taagay waa kow wa ismaaciilu yunaawiluhu maarata xijaara ismaaciilla dhagxaantii buu dhiibdhiibayay wahumaa yaquulan iyagoo leh rabbanaa taqabal ilaahu naga aqbal minaa xaggayaga camalka aanu kuu samaynayno inaka anta asamiicu ilaahu waxaa tahay ilaah maqalka badan oo caliim cilmiga badan qaala fa jacalaani waxay gudagaleen yabniyaani xataa yaduura xawla maarata kacba ilay dhagaxii bay la wareegayaan uu dhigay meeshuna way sarraysaa ilaa ay kacbada gidaaradeedii la wareegeen oy dhiseen waa kow wahumaa yaquulaani rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim watub maarata calayna maarata inaka ayagoo maarata qur-aanka akhriyaya rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim wa hada alxadiis min kalaami ibni cabaas waa kow waayahay wuxuu yidhi marka dhagaxaas nabiyullaahi ibraahim uu ku joogsanayo waa dhagaxa yacnihi hadda yaalla maqaamu ibraahimka oo ilaahay subxaana wa tacaala inuu nebi ibraahim kolba sare u qaado oo ilaahay uga dhigo yacnihi shay isagu isdallacaya sida bahalka nimanka kareenka la isticmaalay guryaha lagu dhiso baa ilaahay uga dhigay subxaana wa tacaala nabiyullahi ibraahim intuu adinkiisu leekaana waa idinka arkay intuu waagaa dadku laaleekaayeen ninkii ilaahay kacbada geeyo maqaamu ibraahimka arko halkuu ibraahim dhagaxuu ku istaagaya kacbada ku dhisayay intuu leegiyay arko baa arki doona ibraahim qadamkiisa iyo lugtiisu intay leekayd markaasaa arki doontaan ilahay waxaan weydiisanaynaa inuu in badan kacbada sharafta leh ina geeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu iyana sharaf u yeelo marka calaa kulli xaal nabiyullahi maaratay israa'iiliyaad badan ayaa halkan ay keenaan oo aynaan maaratay u baahnayn in maxaan ku dhahdaa maaragtay aynu yani wakti badan aynagaga lumo oo yacnihii nabiyullaahi ismaaciil imise caruuru yeeshay imise jeer buu guursaday maaratay hooyadii markii uu maaratay ay dhimatay maaratay imise jeer buu maaratay la xididay waxyaabahaasoo dhan maaratay ayaa maaratay israa'iiliyaad badan ayay halkan keenaan wa kaana bacdu hada siyaaq multaqa min alisraaiil maaratay wuxuu yihi marka xaafid ibnu kathiir kitaabkiisan taarikhu lambiyaa wuxuu yihi maaratay wixii aan yacnihii sunnada saxiixa iyo qur-aanku aanay ku sugnayn dheg u dhigi mayno buu yidhi dheg u dhigi mayno oo maaratay qisada yani inta saxiixi waa intaa waqad maaratay dalalna calaa ana dabiixa wa ismaaciil maaratay cala saxiix fi suurati saafaat marka nabiyullaahi ismaaciil marka kacbada ay dhisaan nabiyullahi ibraahim wuxuu ismaaciil u sheegi doonaa inuu arkay manaam isagoo gowracayay ismaaciil calayhi salaatu wasalaam marka qisas fara badan dabiixu ma ismaaciil baa mise waa isxaaq labadii wiile midna saare dhashay midna haajari dhashay keebaa ah dabiixa kii la gowracay maaratay waxa weeyaan inuu nabiyullahi ismaaciil yahay suuratu saafaat baana maaratay ay noogu iman doontaa qisadan ku xigta ayaa qisadii nabiyullahi ibraahim iyo dabiixi ay maaratay qisatu dabiixi iyo qur-aanka kusoo arooray iyo inuu ismaaciil ahaa iyo inuu isxaaq ahaa iyo waxyaabaha loo delishanayo qisadan ku xigta ayaynu insha allah maaratay ka dhigaynaa isma dhaafno wajazaakum allahu khayr soo dhawaada walaalayaal dhammaantiin sheergareeya maxaan ku dhahdaa maaratay anna maaratay waktiga uu iga dhayahay maaratay walilahi alxamdu iisoo duceeya su-aalo maaratay kama jawaabi karo leanna maxaa yeelay ilmo yar baan iskuul kasoo kaxaynaya maaratay baaraka allah fiikum dhammaan waxaan maaratay idinku dardaarayaa dhammaantiin sheergareeya walaal maaratay dad badan baa tihiin nin waliba markuu sheergareeyo aqoontii iyo cilmigii dadkii isagoo halkooda joogay wada gaadhaysa oo yani meel fog buu gaadhaya maaratay marka walaalayaal ha dhayalsanina inaad sheergaraysaan ha dhayalsanina qof walbaba accountkaaga 500 ama 1000 qof ama 2000 ama 5000 ee aad asxaabta la tahay ayuu wada gaadhaya waxaa kaloo dardaaran idin siinaya maadaama aynu facebooka dacwo ugu jiro nin walbaba facebookkaaga accountkaaga 5000 qofna haatee qof saaxiib kaa codsaday ha u diidin weligaa la saaxiib
sawiradaada iyo waxaagana ilaasho haddaad is leedahay waa qof xumaato u socda leanna maxaa yeelay hadhow dacwo kasta iyo clib kasta iyo sheekh kasta oo lecturekiisa facebookkaaga dhigto dadka asxaabtaada oo dhan baa dhegaysanaya khayr bay kuu noqonaysaa qof daaciya baad noqonaysaa adigu xataa haddaanad dacwada sheegin dadkii baad dacwadiisii usii gaadhsiinaysaa marka aalaadka facebooka inaynu asxaabteena kordhino ilaa 5 kunba aad gaadho dhibaata ma laha dadka qaar baa kule dadka ma ogolo 100 qof aan ogolay sawiro iyo waxyaabo uu ka xadi karo ama maartay ayaan loo isticmaalin laakiin meesha khayrun baa loo isticmaalayo dadka inaad maartay marka qofka uu maartay ka asxaab badan yahay waxa weeyaan maartay cajaladaad geliso asxaabtii oo dhan baa dhageysanaysa marka walaalayaal jazakumullahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aynu isu soo ducayno insha allah isma dhaafno caawa ayaynu isku soo noqon doonaa aniga iyo maartay walaalaha kale pageka ka howlgalaba maartay jazakumullahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilahay idin barakeeyo dhammaantiin wada sheer gareeya